xildhibaan Sadiiq Cabdi oo kamid ah xildhibaanada deegaan doorashadoodu tahay Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa qoraal bartiisa Facebook uu soo galiyay waxa uu si weyn kaga hadlay xaaladda ka taagan maamulka Koonfur Galbeed ee u dhaxaysa dawladda federaalka iyo maamulkaas. xildhibaanka ayaa yiri waxaan muddo dheer si isku mid ah ugu soo horjeeday madaxweynaha xilkiisu dhamaanayo iyo maamulka muddo dhaafka ee Koonfur Galbeed sabab la xiriira xadgudubyada sharci ee ay ku kaceen dulmiga ka jira maamuladooda eexda joogtada ah qaraabo kiilka iyo musuqmaasuqa baasan ee ay ku dhaqmaan. mowqifkaasi waa mid cad oo aan marnaba ka tanaasuli doonin. si kastaba ahaatee waxaa jira saddex arrimood oo gabi ahaanba aan la aqbali karin oo si muuqata uga dhex ifaya kooxaha isu sheegaya isbedel doonka Koonfur Galbeed. midda koobaad ayuu xildhibaanku ku sheegay in isku dayga lagu taageerayo ama lagu sacabtumayo wax ka bedel dastuur oo hal dhinac lagu meelmariyay si loo raaligeliyo hoggaan fashilmay ama loo kasbado taageero deegaan. arrintaasi waa marin habaabin siyaasadeed oo aan wax sharciyad ah lahayn mana aha mid la aqbali karo. midda labaadna wuxuu xildhibaanku ku sheegay in aan la aqbali karin in nidaamka federaalka oo ah laf dhabarta dawladnimada dalka la wiiqo ama lagu burburiyo gudaha deegaanada maamulka Koonfur Galbeed. sidoo kale ayuu xildhibaanku yiri lama ogola in lagu farageliyo awoodaha dawlad goboleedyada waraaqada wiifta ah iyo magacaabis siyaasadaysan oo ka imanaysa wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka. midda saddexaad ayuu yiri waa arrin aan la aqbali karin in dadkii shalay ku lug lahaa daadinta dhiigga shacabka maanta loo soo labiso darajada haliyay isbedel si loogu adeego ajandayaal qarsoon. taariikhda lama qalloocin karo dambina laguma dhaafi karo magac isbedel. qofna yuusan isku qaldin waxa la difaacayo iyo waxa la sheeganayo. isbedel doon dhab ah ma noqon karo qof u adeega dana shakhsiyeed ama ka hor imanaya masiirka guud ee ummadiisa. qof raaligelinaya hoggaan fashilmay si uu u sii waaro ma aha isbedel doon balse waa khiyaano siyaasadeed oo cad. qof sheeganaya isbedel doonnimo balse diidan federaalka ama awoodsiinaya dad hore ugu lug lahaa dilal ma aha isbedel doon ee waa marin habaabiye dadka lagu qaldayo. arrintaasi waa in si cad loo diidaa ayuu xildhibaanku yiri qoraal oo uu ku daabacay bartiisa Facebook kaasi oo uu kaga hadlayay khilaafka ka dhaxaloosan madaxweynaha waqti uu ka sii dhamaanayo ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.